الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، walaalyaal waa fadhigii shanaad ee ka mid ah fadhiyadii in ku soo gudbinaynay Ladaa'if ibn Hajar raxmatullaahi tacaala calayh, ama boqolkii faa'iido ee ku saabsanaa soonkeena ka soo xullay kitaabka Fathul Baari. insha allahu tacaala waxaan isku dayaynaa in aynu muxuu ahaaye koobno, waana ka cudur daaranayaa dib u dhacay darsiga caawa ilaa iyo aynu soo gaarnay saacaddan. roobab aada u qiimo badan oo xoog weyn oo da-ay awgood rabbi subxaanahu watacaala mahad ha ka gaadho, isaga fadligiisa iyo karaamadiisa iyo deeqdiisa naxariistiisa ayaa rabbi subxaanahu watacaala noogu deeqay. mudirnaa bifadli illaahi waraxmatih. waxaynu soo gaadhnay ladiifada afartanaad ee ka mid a Ladaa'if ibn Hajar raxmatullaahi calayhi, oo aynu ka soo hadalnay darsigii hore dhammaadkiisii. muxuu ahaayey sharaxii la saaray xadiisu abi hurayra fii kafaarati almujaamici fii nahaari ramadaan ee xaafidku raxmatullaahi tacaala calayhi uu tilmaamayey in laba mujallad xadiiska lagu sharaxay oo culimmadu isagu wax ka bartay culimmadoodii laga sheego inay laba mujallad ku sharaxeen, kun faa'iido iyo faa'iidana ay ka soo saareen halkaa xadiis. taana uu markaa waxa weeye calaamad uga dhigay nebiga sala allahu calayhi wasalam sida ereyada kooban oo macaanida faraha badan iyo qawaacidda aadka u qiimaha badan lagu koobay. xaafidku raxmatullahi tacaala calayhi markuu ladiifada wuxuu ku xejiyey ladiifo labaad oo aynu ka dhigayno ladiifada 41aad, oo wuxuu leeyahay xaafidku markuu ka hadlayey hunqaacada ruuxa sooman ee marka waxa weeye uu hunqaaco. قال البخاري رحمه الله قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا قاء الصائم فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر. قال البخاري: والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. حافظك رحمة الله تعالى عليه wuxuu isku dayayaa inuu tilmaamo imaam albukhaari madhabtiisa marka laga hadlayo soonka ruuxa sooman iyo hunqaacada, waxa ay soonkaasi yeelayso iyo xukunkeeda. oo wuxuu leeyahay xaafidku bukhaari wuxuu yidhi abu hurayra ayaa yidhi: idaa qaa'a asaa'imu falaa yuftir. ruuxa sooman haddii ay hunqaaca ka timaado afuri maayo, yani soonkii waxba yeeli mayso. inamaa yukhriju walaa yuulij, waxaan ka soo baxayaa waxba yeeli maayaane wixii dib u galay ee u raaca ayuunbaa wax yeelaya buu tilmaamayaa abu hurayra radi allahu tacala canhu ardaa. wayudkaru buu yihi bukhaari raxmat ullahi tacaala calayhi, wayudkaru can abi hurayrata annahu yuftir. abu hurayra waxaa laga sheegaa inuu ruuxa hunqaacadu ka timi hunqaacadu ay afurinayso soonkii ka jabayo. qaala albukhaariyu: walawalu asaxu, ka horaa sixa badan. labada naqli ee laga keenay abu hurayra radia allahu tacala canhu ardaah waxa sixa badan ka hore. waqaala ibnu cabaas wacikrima: asawmu mima dakhala walaysa mima kharaj. soonku waxa uu ku jabaa wixii ruuxa gale ee wixii ka soo baxa, markaa waxa weeye kuma jabayo waxba yeeli maayo. soonku wuxuu ku jabayaa buu tilmaamayaa cikrima oo min culamaai taabiciin ka mid a garanaysaan. wixii ruuxa joogfiisa dhaafa ayuunbaa marka waxa weeye burinaya buu tilmaamayaa raxmat ullahi tacala caleyh. ladiifada 42aad wuxuu ka hadlayaa xaafidku raxmat ullahi tacaala calayhi ruuxa hunqaacada iska keena camdan isaga oo sooman inuu afurayo miyaa lagu ijmaacay? yacni khilaaf miyuu ku jiraa masalada ah ruuxu hadduu hunqaaco iska keeno isagoo u camdinaya
أو صومن إني صون كيسي تبايو ما إجماع وما سوى خلاف أيوك الله يحفظكم الرسولية هنا نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القي وابن المنذر وحو صار نقليا من العلماء كو إجماعين وسلوى فقسيهين إن صومه كباط القروبيو وكبريو اللو عمديو إنهم قاعد يسكينوا كاسو إجماع إلى صون نقلين حافظكم وكذبته وحولي لكن يعني استدراك بالسمية والنقل جي ابن المنذر وكشجي وكذبته لكن نقل ابن بطال عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود لا يفضل مطلقا لكنها صيش إجماعاتي أن سو نقلني هل كيسو أهانيا لكن وسو نقل ابن بطال وأحد علماء الشافعية كم إذا عبد الله بن عباس وكشجا ابن مسعود به لا يفضل مطلقا إنه روح هدوء عمديو هم قاعدة آني سوكيس يحبيين بلغسون نقرأ عبد الله بن مسعود بن عباس عبد الله بن مسعود يا عباس هذا درك تحافظكم رحمة الله تعالى عليه سوقو كسو نقلنا إجماع ابن منذر كذب تجيه هلا يابي وهاي علماء waxay tilmaamayaan sida imaam al-Murdawi uu tilmaamayo ibn qayyimna uu sheegayo ibn mundir haduu arko akthar ulama oo qowl ku tagay ijmaac uu ka dhigaa ولذلك باجماع ku badan yahay ijmaacada badankoodana masaa'il lagu ijmaacay qaran lagu ijmaacin ba uu soo naqlay ijmaaci uu soo naqlay ibn mundir rahmatullahi ta'ala alayh marka culimada qaar waxay leeyihiin waa mutasahil fi al-ijmaac bal muxuuha ibn qayyim wuxuu leeyahay وهذه عادة ابن المنذر إن أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا علماء بدن كود هذو قول سكر راعه إجماع بكي لا إجماع صون قيا مركها إن هذا سكتشرت إجماع كصون قرن ابن المنذر ولذلك وحافظكم رحمة الله تعالى عليه مثلا نوع عسى مربى وقدم التجياه ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه مركا مسألة ده إن قفكو قاعدة دوس كينو وصون كبريو ولا بدل هو أي إمام مالك كانوا متكملة لبر هو لو كان إمام مالك ابن أنس ومن هذا يقف كاسي صون كي وكتشبيا منك كتشبي بايو ابن مسعود بن عباس ولا شيء قبلي ما كان إجماع نوعاسي لما حجيزنا وتلمام يمر هدي أئمة فرح بعض الصحابة داسي بقى أي سيدا كلا ودقيه وحو كانوا كهذا حافظ رحمة الله تعالى عليه ورضي فضل صدحي أفرتران ونيسه من ذرعه الغيب روحا وترقيه هم قعدوا أي ترقيه أما ما تقوا هذا بس أنا مقانه روحا ودرقيه أو كهذا يا حافظكم رحمة الله تعالى عليه وحليه ناقل ابن منذر رحمة الله تعالى عليه الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القي ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن ابن منذر وحسون قيل إجماع بقصة قيل إن روحه كتجي يسوق اللين تسوق اللين يومين هم قاعد مركا وحوي الدرقي يعني إنه بروني يسون كنتو لما يستر عن سوق اللين أي إجماع بقصة قيل إلا رواية لا يشيء حسن البصري رحمة الله تعالى عليه وياه مسألة عمل ضيفة فريا فرتنات وكه الله يحافظكم رحمة الله تعالى عليه حجامة أما استوك قف مركز سوميه استوبيه وحلا يحافظكم رحمة الله تعالى عليه مجرد كشنات سبحانه 27 نباتا أما الحجامة فالجمهور على عدم الفضل بها مطلقا وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم لمحجوب وأوجبوا عليهم القضاء وشذ عطاء فأوجب الكفارة. مذاهب العلماء في الحجامة بكهر الله يحافظكم وبعليه رحمة الله تعالى عليه حجامة ما يستوبكوا جماهير أهل العلم وحي قبان يعني قفك عفرين مطلقا سم مطلقا أنا قفك وافرين كم محتوبة كلا توبة يتون
علي يا عطاء يا أوزاعي يا أحمد يا إسحاق يا أبي ثور وحنا لقى كينين هذين قفك استوبي كلا توبي لبضوا أفرنيه وسوف كتبيا بل وحي واجبين إنه قفك سوق الله وأيه و محوها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا عطاء إمام الأوزاعي أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية يا أبي ثور waxay qabaan in qofku ka wax la toobay iyo ka wax toobay ay soonki ka jabayo bal ay qalaynayaan maalinka lagu leeyahay cadaaba isagu tabiiciga jilka ah ba isagu wuxuu ka sii waajibiyay kafaaro wuxuu leeyahay waa inuu soo qaleeyo kafaarana bixiya noocaas oo kale mid lamid ah waxa soo saaraya asaanidiisa ku soo saaraya muxuu ahaayay عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله تعالى عليه مذاهب العلماء في الحجامة يضع مختصرة حافظكم انتاسو كشيء رحمة الله تعالى عليه ما كمشى وحكى عصيدة مختصر كأهي كوبا حافظكم رحمة الله تعالى عليه وقهض ليه مذاهب العلماء وخاصة السلف منهم كسابسا هاي صونك كسابسا هي مسائل الشيء سي مختصر وعادو كوبا وقهض ليه نظيفة شنية فرتنان حافظ رحمة الله تعالى عليه وفي شيء أثر عبد الله بن عباس لقى سوريه وليه هي قال ابن عباس الفطر مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخل وحلو يديني عبد الله بن عباس استنشاق يوم المضضة يحيى لها اللمدكاه صنف محيي ليس رسول عبد الله بن عباس قاعدوا بحين ياقود ومسألة لودية مسائل كلافر بدن يسوق ريان وليه waxa lagu afuraa qofku soonka kaga jabaa oo wixii ruuxa u dhaadhaca joofkiisa kala wixii isaga ka baxa kuma afurayo weysadu waxay kamid tahay waxyaalaha ka soo baxaya wada istishaaq waa soo laabanaya luqluqashadiina dhaadhici maysa dib u soo laabanaysa ولذلك قاعدadaas waxaan ku soo marnay oo mar horena aynu ku soo sheegnay xaafidkuna uu ku soo isticmaalay aatharteedana uu ku keenay markuu ka hadlayay xajada markuu ka hadlayay aynu ku soo marnay إن شاء الله تعالى شنطة لطيفة ينعاو كتو جنينا ربنا سبحانه وتعالى وحن ويديسينا وحاوية فهنسيي يا قواعد رب سبحانه وتعالى أن نوافعه ونفضيه هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك